أتينا نسعى بسم الله أتينا بالقرآن مضينا جمع بالقرآن مضينا بسم الله أتينا نسعى بسم الله أتينا بالقرآن مضينا جمع بالقرآن مضينا صار بنا شوق وحنين ننهل من ينبوع الدين صار بنا شوق وحنين ننهل من ينبوع الدين بسم الله بالقرآن مضينا بسم الله بالقرآن مضينا أجمل أوقاتي أمضيها في دنس القرآن هو نور حياتي ونعيم الفردوس وجناني أجمل أوقاتي أمضيها في درس القرآن هو نور حياتي ونعيم الفردوس وجناني يحدونا نحو المستقبل كي يضحي عالمنا أجمل يحدونا نحو المستقبل كي يضحي عالمنا أجمل بسم الله بالقرآن مضينا بسم الله بالقرآن مضينا بسم الله أتينا نسعى بسم الله أتينا بالقرآن مضينا جمع بالقرآن مضينا بسم الله أتينا نسعى بسم الله أتينا بالقرآن مضينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. waxaan maanta ka bilaabaynaa meesha insha allah aayado gaar ah oo la yidhaaho aayadaha axkaamta tafsiirkooda, laakiin intaynaan mowduuca aynaan hoos u gelin ama lubigiisa aynaan taabanin yaa waxaynu insha allah muqadimo yar ama hordhac yar oo ku saabsan qur-aanka iyo mawaadiicda uu ka hadlay qur-aanku sida aynu ognahay waa kitaabka ilaahay uu ugu talagalay subxaanahu wa tacaala adduunyadan oo dhan in uu maamulo oo uu manhaj iyo dastuur iyo qaanuun uu u noqdo, uu xadido jaanib kaste iyo jaanibka la xidhiidha calaaqada u dhexaynaysa laba gees oo kaste oo xidhiir ka dhexeeya siday u xidhiiri lahaayeen. qur-aanku waa kitaabu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku magacaabay muhaymin. kutubadii ka horreysay oo dhan iyo adyaantii iyo diimihii ka horreeyey oo aan la kala qaadin yuu kitaabkani uruursanhayaa axkaamtoodii iyo diinkii ilaahay uu waagaa dadkaa ku soo dejiyey. wuxuu la dheeryahay waxaan waagaa soo degin oo ka dambeeyey, siduu rasuulku u yahay khaatama alambiyaa, nebiyada kii lagu khatimay, yuu kitaabkuna wuxuu yahay khaatama alkutub, kutubtii alla oo dhan baa lagu khatimay. sidaa darteed buu kitaabkani wuxuu yahay kitaab loogu talagalay ka weyn, ka guda weyn, ka taariikh weyn, ka muddo dheer kutubadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejin jiray. waxaa loogu talagalay inuu la fil noqdo kolkuu soo degay laga bilaabo ilaa adduunyada ay ka dhammaato inuu jiro. sidaa darteed baa loogu talagalay inuu noqdo kitaab mucjiza, maxaa yeeley wax aan gaboobaynin, waxa la joogaana gaboobayo, waxaan isagu khaldamaynin, waxa la joogaana khaldamayo, wax jiraya oon zuulaynin, hadba qarniga la nool ay zuulayaan, isaguna soo hadhaya oo kii dhashaba la cusub. isagu waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala. kitaabku mar hadduu sidaa yahay waxaa xaqiiqa inuu yahay kitaab mucjiz ah, dhinaca walbuu ku yahay mucjiz, bimacnaa cajis gelinhaya addoommada. mawaadiicda uu ka hadlay iyo takhasusaadkiisu qolo walba oo jirta oo mutakhasis ku noqota cilmiyadan hadda la yaqaano qur-aankuu la socdaa. sidaa darteed bay marka ay ahlu iimaan yihiin meesha ay joogaanba ay qur-aanka uga faa'iidaysaan takhasuskooda.
لكن قرآنكم مع ذلك مواضيعنا سي جانب وقهد الله مواضيعنا سي رئيسي أبو وقهد الله قرآنكم مركا مواضيع ديسا أساسي يا وحا كمد الضوامضة يا إله هذا علاقة كان حين سيد الله صحي لها